way marka ugu horeysa waxaan isku dayi doonaa horta haddii alla insha Allah inaan warbixin kooban ka siiyo goobtan aad ku sugantihiin waxa weeye Berbera Economic Zone xeerarka lagu maamulo free zone-ka Somaliland law number 93 waxa uu authority-ga Somaliland awood u siinayaa in wixii free zones horumarintooda iyo maamulkoodaba inuu heshiis kula geli karo cid ah investor ama developer. free zone-kii ugu horeeyay Somaliland oo maanta dhex fadhidaan oo ah Berbera Economic Zone wuxuu maalgelisay isla markaana develop gareysay horumarisay DBWell oo taqaanaa dekedeena iyada walaarisay isla markaana casriyeysay. free zone-ka Berbera ama Berbera Economic Zone waxa la furay bishii March sanadkii 2023 halkaasi waxa weeye warbixin kooban ku saabsan horta meesha aad ku dhex jirtaan. haddii markaa aan u soo noqdo waa maxay free zone? free zone waxa weeye gaara oo loogu talagalay in lagu kobciyo isla markaana lagu horumariyo ganacsiga. haddii ay tahay business-ka caadiga ganacsiga caadiga haddii ay tahay waxyaabaha industrial activity-ga iyadoo markaa la siinayo tashiilaad ama waxyaabaha incentives ah oo halkan ugu tagi doono haddii alla insha Allah wadarkaysaan waxa furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland sanadkii hore bishii March. free zones-ka ama special economic zones-ku dunida waxay ka bilaabeen 1960s-kii 1960-kii ayaa free zone-kii ugu horeeyay adduunka sameeyay. 80-kii baa wave-ka ugu badan ee special economic zones-ku dunida ka bilaabeen gaar ahaan qaaradda Asia oo u badnaa export processing zones. يعني Asia waqtiga waxay awood u saarayeen wadamada Asian ku tartamayeen waxay ahaayeen export oriented wax dhoofiyaan. taas markaa keentay inay sameeyaan goobo export processing zones oo lagu dhiirigelinayo exportka. 1990kii ilaa 2000 ayaa iyadana la sheegay markaa in free zones badan dunida laga sameeyay. adduunka waxa la sheegay ilaa 5400 oo free zone inay ka jiraan. qaaradda Afrika 237 waa la yiraahdaa ilaa 500 oo economic zone waxa la leeyahay iminka waa qorshe oo waxa la doonayaa in la horumariyo sanadada soo socda haddii alla ilaahay insha Allah. Berbera Economic Zone oo iminka dhex joogtaan session-kan markaan dhamayno haddii alla ilaahay insha Allah waxa la idin samayn doonaa tour. Ibrahim baa idin samayn doona. Ibrahim waxa weeye wuxuu ka tirsan yahay shirkadda DBWell qaybta economic zone-ka. madashan waxa ku wada shaqeeya authority-ga Special Economic Zones Authority Somaliland hay'adda Somaliland u qaabilsan free zone-ka iyo shirkadda DBWell. halkan waa arki doontaa xafiiskii custom-ka ah maadaama meeshan ay tahay meel ay badeecad marayso. markaa wuxuu ka tirsan yahay Ibrahim teamka shirkadda DBWell gaar ahaan waa investment service officer weeye. waxaad arki doontaan facilities-ka meesha laga hirgeliyey. sawirada qaar halkaas aad ka sii arki doontaan. halkan waa halkii markaa soo dhex marteen. building-kaas waa building chemical ku jirno. waxaad ka arkaysaan iyadana warehouse-yadii waxa ka dhisan meesha laga hirgeliyey 20 bakhaar oo cabirka ay ku fadhiyaan tahay 10 meter square 10,000 meter square midkiiba uu yahay 500 meter square. dhammaan 20 bakhaar waxa degan ganacsatada degan oo la kaleystay shirkada degan. haddii aan la wadaagno markaa intii markaan idin sheegay weeye design-kii guud master plan-kii meesha aan joognaa waa ka 20 bakhaar oo loogu talagalay wixii storage ah oo midkiiba yahay 500 square meter ayaa ka dhisan. waxaa kale oo diyaar oo la diyaariyay 17 surface land plots dhul bannaan ah oo arki doontaan markaad dhex maraysaan meesha alaabta la meesha. oo qofka ganacsadaha ah ee doonaya inuu qaato license-ka free zone-ka waxa haystaa options badan. qofku markuu doonayo inuu Berbera Economic Zone soo dego markuu ugu horeyso waxa shuruuda inuu soo apply gareeyo license-ka. license-ka waxa bixisa authority-ga hay'adda xagga dawladda u qaabilsan economic zone-ka. license ilaa 6 license ayaan markaa bixinaa. waxa kamid ah logistics license, waxa kamid ah muxuu ahaayay general trading license oo ganacsiga guud ah. trading license inay doonayso inay maaragtay products cayiman ay keenaan trading license bay qaadanaysaa. inay doonayso inay logistics ku shaqeyso logistics license bay qaadanaysaa. inay doonayso inay markaa business weyn oo alaab badan ay keento
products badan ay keento ama service kala duwan ay qabato waxay qaadanaysaa markaa general trading license waxaa jira isaguna industrial license wixii warshada ah warshadii ugu horeysay baa halkan imika dhiskeedu ka socdaa kulli March la soo gabagabayn doona haddii aan la ilaahay insha Allah dhiskeeda oo ah warshad soo saari doonta muxuu ahaa saliida halkan baa lagu broskarayn doonaa iyadoo diyaarsan baa digada la keeni doonaa hamaha oo la soo qaadi doona dadkan xagga packing lagu samayn doonaa marka halkan waxaa kaloo markaa jira adeegyada kale jira waxa kamid value addition alaabta inta halkan la keenay wax lagu daro dadana made in Somaliland lagu qoro license-ka marka qofku soo apply gareeyo shuruudihii loo baahnaa application form-kii waxa uu soo bixiyo ilaa approve gareeyo marka qofku application form-ka baahidiisu dee ku base gareynaya wuxuu u baahan yahay warehouse buu u baahan yahay dhisan oo diyaara mise isagaa doonaya inuu dhisto option buu haystaa haddii uu u baahan yahay prepared warehouse sida kuwan oo kale cabirkuu sheegay waxaan u baahanahay warehouse intaasa haddii markaa isagu uu doonayo inuu dhistana waxaa laga kareynayaa un dhulka kirada dhulku iska bixinayaa dhiskana isagaa samaysanayaan isagoo markaa raacaya dee guidelines-kii procedureski dhismaha loogu talagalay ee muxuu ahaa economic zone-ka waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan waa system maaha warqado physical interaction maaha waxaan leenahay one stop shop annagii aan ku wada shaqeyno muxuu ahaa shirkadda DP World qof walba leeyahay fuels iyo magaranaysaa waxaa loogu talagalay muddo kooban one stop shopka inaan qofku si magaranaysaa seamlessa application markuu sameeyo inaan waqti badan ka qaadan waxaan markaa eegi doonaa oo kale bal faa'iidooyinka iyo waxyaabaha laga faa'iidayo ayaan xagga dambe ugu tagi doonaa laakiin haddaan in yar dul istaago locationka kule dekedan waa soo marteen halkaa waxaad ku arkaysaan horta economic zone-ku wuxuu ka mid yahay componentka programka guud ee la yidhahdo Berbera corridor uu ka mid yahay waa qayb ka mid ah wey inta badan waa maqashaan Berbera corridor waa qayb ka mid ah waxaa ka mid ah dekedaa ka mid ah waxaa ka mid ah economic zone-ka Berbera waxaa ka mid ah airport-ka Berbera waxaa ka mid ah jidka isku xidhay Berbera ilaa Wajaale intaas waa hardware infrastructure-ka waxaa jira iyaguna software oo customerska ay soo gelayaan wixii documentation iyo waxaasa bankinkii uu soo geliyo caymiskii uu soo geliyo waxyaabaha noocaas oo component-kaa dhan baa ayuu horta economic zone-ka Berbera ka mid yahay haddii markaa adeegtaan tusaale ahaan iminka dekeda Berbera ilaa Wajaale waddo fiican baad soo marteen Soomaaliya waad aragteen corridor-ka Berbera ilaa Wajaale waxaa loo soconaya waad aragteen inta la isku 249 kilomitir waxaa la qiyaasaa in ilaa 4 saacadood haddii dee 4.35 hours Berbera ilaa Addis Ababa 939 kilomitir gaariga halkan ka baxaa uu toos u socdo 13 saacadood baa la qiyaasaa in ku tagi karo Addis wadada waa xaggeenana waad aragteen sida looga shaqeeyay dooxyadii awal waxay soo mari jirteen dooxii Tacabruqo uu socdo la istaagi jira habeenimo ama loo hoyin jirayba maanta ma dareemaysid deena doox galbeedkana waa sidoo kale Arabsiyo iyo already markaa waxa diyaarsan mar ganacsiyeedka dekeda Berbera iyo free zone-ka iyo airport-ka inta ilaa Ethiopia بريء هورنا بالبرتي مع دا إمتى صعدوا بمركتو غير كسر عضو وحيابها رنتي ديار كقوة بربري إيكونوميك زون وحكم إذا أي شركة السعودية صعب لا يجري اللي رنتي أي كهلية وحكم إذا competitive environment الشركة اللي سنك إيكونوميك زون كقاعدتها هذا سعودية تاع وحكي كده وانتها الشركة ذاك روح هلسها fiscal and non fiscal incentives shirkadu markay soo degto badeecadeeda markay dekada kala soo degto waxa shuruuc oo laga qaadayaa ma jiro waxay toos u imanaysaa badeecadeeda warehouse-ka ay ku leedahay economic zone iyadoo waxa shuruuc aan laga qaadin ganacsaduhu ama anaga customer-kayga Berbera economic zone degan waxa uu haystaa markaa option ah haddii badeecadiisu ay tahay badeecad locally consumed ah oo ganacsadeed Soomaaliya Hargeysa jooga oo ka iibsanayo marka halkan kaga iibsado cashuurta waxa bixinaya ninka customer-ka iibsaday baa shubaya ama isaga laftigiisu hadduu u baahdo inuu la baxo cashuurta markaas uu shubaya badeecadu haddii ay tahay badeecad transit-ana muddo kooban waqti kooban baa lagu process-gareeyaa oo tusaale ahaan badeecadu haddii ay tahay badeecad tegaysa tusaale ahaan Ethiopia oo kale procedure-ka customerska loo baahan yahay xagga Ethiopia markay soo dhamaystaan
cidda iibsanaysa alaab maamulaha customka free zonka ee halkan joogaa isaga approval kale isaga approve gareynaya wax waqti qaadanaya oo loonay hebel baadana soo approve gareynaya hadana hebel baa soo approve gareynaya maalintii waxa weeye waa very competitive taas marka waa fiskalkii sidoo kale wax xuquuq u leedahay shirkadda halkan imanaysa soo degaysaa inaan alaabteeda tusaalahan haddii ay wax dhisayso oo warshad tusaale ahaan alaabta ay ku dhisaysa ay meesha gelinayso wax cashuuro laga qaadaya ay ma jirto xagga dambe ugu tagi doonto arki doontaan corporate income taxkeeda ama macaashkeeda sanadka oo dhan ma cashuuray faa'iidooyinka noocaas runtii ayaa ay ka helayaan nooca shirkadaha soo degaya waxa kaloo halkan ku diyaar noqon doona adeegyadii bankinka wuxuu adeeg uga baahnaa magaalada inuu free zone ka dhexdiisa ku helo hadduu baahdo bankinkii hadduu baahdo insurancekii waxyaabaha noocaas ayaa adeegyada kale u baahan yahay sidaasi la mid ah value additionkii oo magaalada idiin sheegayaa saliid iyo balkii keenayaan saliidoo balkii markay keenaan haamahooga loogu shubo waxa la keenayaa free zonka waxa lagu samaynayaa baakin caagadihiiba halkan lagu samaynayaa deetana ku shubayaan vitaminiskii iyo waxyaabaha u baahnaayeen bay ku darayaan markay bankaa ku sameeyaan dadka waxay qorayaan made in Somaliland oo value addition deetana maxaa dhacay alaabtaa inay u iibgeeyaan localina looga iibsado wadamada jaarka ee ama Ethiopia ama beyond Ethiopia ama wadamada kale jaarkana inay ka iibiyaan connectivity-ga Berbera economics waxa ku taala meel very strategic ah wadankeenu guud ahaan waa wadan ku yaala meel very strategic ah si gaar ah hadii Berbera uga hadalna Berbera waxa ku taala meesha ugu strategic gobolka markuu idinka la socdo xaaladda in badan oo la iska indhatiro Somaliland iyo halkay ku taalo maanta waxa xaqiiqda la isku yimid dunida oo dhan xaqiiqda la isku timid in Somaliland ay ku taalo meel muhiim ah ganacsi ahaan ama dhaqaale ahaan iyo security ahaanba connectivity markaa haysta waxa weeye multimodal connectivity ganacsadaha ama shirkadda dhex degan Berbera economics waxay access u leedahay dekedda Berbera oo wax u jirin number 2 waxay access u leedahay airportkii Berbera oo wax u jirin hadii cargo-geeda hadii ay xagga maaragtay airport-ka ay ka diraso number 2 Thailand hadii dhulka uu marayo ganacsigeedu waxay access u leedahay corridor-kii dhammaanaya mar ganacsiyeedkii Berbera marka waa multimodal connectivity wuxuu ku yaalaa meel runtii very very strategic ah wanigii sheegay xagga registration-ka iyo shaqadu waa automated 100% regulatory framework waxa weeye waxa ka mas'uula wixii shuruuca iyo nidaamka hay'adda free zonka ee Somaliland ayaa ka mas'uula waxaana runtii lagu maamulaa laba xeer law number 93 xeer la yiraahdo oo runtii aad heli doontaan akhrisan doontaan 2021 baa la baaskariyay labada xeer ee lagu maamulo free zoneska Somaliland law number 93 iyo law number 96 oo ah looga lagu maamulo shirkadaha soo degaya free zoneska Somaliland free zone maanta aan dhex joogno waa kii Berbera waa kii ugu horeeyay Somaliland laakiin mustaqbalka gobolada kale ee dalka halkii la arkay inay muhiim u tahay inay waqtigeedii tahay ayaa runtii laga hirgelin doonaa haddii alla yiraahdo insha Allah yaaba runtii ugu muhiimsan ee authority Somaliland Economic Services Authority ay mas'uulka ka tahay waxa kamid ah kow liisan bixinta liisanka imika ganacsiga caadiga ee kulli waxa tii dad oo business leh liisanka ganacsiga caadiga ah meelaha aan ahayn economic zones waxa bixisay imika dalkeena wasaaradda ganacsiga ayaa bixisa free zone marka aad timaado waxa mas'uulka ah liisan bixinteeda hay'adda free zone ee Somaliland dhammaan hay'adaha dawladda wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxa ka mas'uula marka economic zones ka noqoto shaqadooda waxa wakiilo ah Somaliland Economic Zones Authority hay'adda free zone ee Somaliland wasaaradda hiblaayo halkan iskama iman karto ma noqoto xafiis baan ku yeelanayaa hay'adda hiblaayo halkan ma iman karto si qofkii ganacsadaha ay shirkadii meesha deganeed aan u confuse garoomin waan ku balooran wasaaradda hiblaayo waxaan anaga kale noocan noo soo gudbi oo businesskii loo fududeydiyo hay'adda free zone ee Somaliland ayuu xeerku sheegayaa inay mas'uul ka tahay dhammaan hay'adaha iyo wasaaradaha dawladda iyadoo la interact karana soo la xiriiraysa haddii ay tahay tusaale ahaan soo saarista fiisayaasha
shirkadaha halkan imanaya waxa u shaqayn doona dad ajaanib iyo dad muwaadiniin labadaba. dadka ajaanibka shirkadahu waa ay u yeedhanayaan dalka iskama soo geli karaan. marka ugu horeysa waxay proposal u soo gudbinayaan hay'adda Freesonka ee Somaliland. hay'addu markay ku ganacdo qofka ajaanibka in aqoontiisii aan wadanka laga helayn, markaas ayay u approve gareynaysaa. dabeetana waxay hay'addu u gudbinaysaa immigrationka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in qofkaas loo ogolaado inuu dalka soo galo. xeerkuna wuxuu dhigayaa law number 93 in priority number 1 in la siiyo dadka muwaadiniinta ah ee Somaliland. waad arki doontaan oo wuxuu ku jiraa website-ka Garyaqaanka Guud ayuu ku jiraa law number 93 cidii garanaysaa waqti waa haysa in akhrisato. wixii skillera oo in dadka ajaanibka aqoonta ay leeyihiin iyo khibradda ay leeyihiin haddii aan wadanka aanay diyaar u ahayn, xeerku wuxuu awood u siinaya in loo ogolaado dadka semi skilledka 70% inay noqdaan dadka Somaliland, dadka aan skillkina 100% inay noqdaan dad Somalilanders ayuu xeerku leeyahay. marka permitka dhiska qaabka loo dhisayo kabin markuu halkan imaado guidelineska constructionkii waxaas uu raacayo waxaas oo dhan waxa ka mas'uula hay'adda Freesonka ee Somaliland. wana shopka aniga idin sheegay internet markii dhaweeyadeen intii aan idin sharaxay sea connectivity waa kadib oo soo marteen waana picture kii waanu saas ku qabsadaa air connectivity oo ah Berbera airport iyo sea to road trade. يعني picture kii waanu soo qabtaa waxaad joogtaan meel very strategic dhaqaalaha economically. takadii airportkii Berbera oo jirin iyo Freesonkii Berbera aad ku sugantihiin wana soo faantaan inaan ku nool lahay ilaahayna siiyay the most strategic position in the region, meesha ugu istiraatiijsan gobolka ganacsi ahaan iyo security ahaanba. in yar haddaan ku soo noqdo dul istaago shirkadaha Freesonka soo degaya maxay ka faa'iidayaan, way aan uga baahanahay inaan Freesonka ka qaato laysan. number 1 waxa loo ogol yahay company-ga soo degaya Berbera Economic Zone ama Freesonka kale mustaqbalka inta samayn doono in shirkadaha 100% foreign ay yeelan karaan, dad ajaanibi 100% inay yeelan karaan. qodobka kale inuu yahay 0% corporate tax waa qodobkii markii dhowaad aan ka hadlayay ahaa inaan la cashuuri doonin macaashka. waxa sidoo kale aan loo baahnayn oo shirkadda aan lagu xidhin inay sidato import iyo export license. tusaale ahaan inaan raacno shirkadda imanaysa economic zone kuwa inay sidataa license import ama export wasaaradda ganacsiga kuma xidhno. halkan waa arkasaan dhammaan alaabaha ay la soo degayso waxa cashuuro laga qaadayaa ma jirto, iyo waxyaabaha ay dhoofineysaba iyo waxyaabaha kale ay Freesonka kale ama economic zone kale ay u export gareynayso waxa cashuuro laga qaadayaa ma jirto. haddii ay tahay tusaale ahaan tii markii dhowaad idin sharaxay haddii warshad xaggan laga sameynayo oo qalabkii alaabtii ay ku dhisayeen ay keensanayaan waxa cashuuro laga qaadayaa ma jirto. sidoo kale waxaan jirin restriction la xiriira alaabtooda property-googa markay doonaan bay la bixi karaan, cid controleysa oo odhanaysa waa restricted lama bixi kartaan runtii ma jirto. macaashkooga kalena waa la mid. sidoo kale waxaan restriction aan ku jirin dadka foreign-ka ah aqoontoodii iyo khibraddoodii aynaan lahayn inagu. sidaas la mid ah waxay heli karaan dhammaan lacagaha ay doonaan bay halkan ku isticmaali karaan. lama odhan karo $1 oo kaliya isticmaala, lacagooga kale tusaale pound bay isticmaali karaan, lacagaha kale caadiga adduunka ee international ganacsiga adduunka ka qayb qaata lacagaha qaarna waa lacago dee aan qiimo lahayn, lacagaha qaarna waa lacago qiimo leh. marka runtii waxyaabaha noocaas faa'iidooyinka noocaas ayaa ay ka helayaan. thank you so much. waxaa idiin samayn doonaa kolley toorkan Ibrahim baa idiin samayn doonaa